Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada janalkeena oo walaashin xilkasxiiso oo idin leh isku soo noqod wanaagsan asxaabta saa ujeedin dee la jecleydaan rabaa inaan tinta u sameeyo hadda galabay noo tahay hadda ilaahay uu soo qubiyey ayada dhan nadiif waaye tinta waa soo dhaqay nadiifaan kasoo dhigay hadda waxaan rabaa inaan tinta u hagaajiyo hadduu ilaahay ka raali noqdo ani waxaan u mariyaa saliidaas aan u mariyaa waxaa laga helaa dukaamanka carabta waxaa laga helaa marka wuxuu ahayd saliidaas aan hadda u marinayaa tinta dhankaal arigay ka dhigaysaa marka waa kaas asxaabta tartiib tinteeda u shanlaynayaa waxaa waaye tin shanlaysna adduunka loo necbi yahay waqtigiino mobilkaas intay ku mashquulsan tahaan dhagdhag uga siinayaa waayo waxaa waaye daadan hadda galabtii aadan jadwalkaaga aadan iska sixin oo guriga iyo hooshiisa iyo wixii dhan aadan iska kala nadaaminin waa ku wareeraysaa subaxii isniin waaye insha Allah hadduu ilaahay idmo waxaa waaye kala ordaa bilaabanayo cid walba iskuulay sanaysaa karaale noqdana hadda ciyaalka jiiqdooda maqashiin fiidiyowga codaan saarayaa saastee tahana caruurtii alxamdulillaah gadaalay ka qaylinayaan banaanka marka waa kaas fiidiyowgeeda iska daawanaysaa adduun ay war u heesabo ma jirto tartiib madaxeeda loo hagaajinayaa haddii kaleetood subaxii waxaa waaye galab iyo asoo kala taagan cunugii iskuulka ha aado dhibaato waayo waa inaa waqti dheer aad jadwal samaysataa oo wuxuu ahayd ilmaha dharkooda iyo iskuulka waxay ku aasan lahaayeen iyo wuxuu ahayd nadaafadoodii sagsaamankoodii wixii oo dhan waa inaa iskuuga habaysataa oo guriga dhan iska nadiifisaa marka waa kaasaa waa idinla qaybsanaa insha Allah fiidiyowga kaleetood rootiinka aniga habeenkii aan samaysto oo caruurteeda maaragtay jadwalkooda asxaabta mar walba jadwalka guriga waa idin soo geliyaa laakiin hadda rootiina idin bilaabaa inaa idin soo geliyo qaabka aniga maaragtay habeenkii jadwalkayga ee tahay waa caruurteeda maaragtay qaabka aan cunto iyo wax u kala siisto u kala habaysto oo jiifkooda iyo waxooda aan ugu diyaarsado iyo dharkooda marka waxaan dareemayaa inay hooyooyin aniga sideeda kale ay jiraan oo ayagana maaragtay dhiirigelin ay u noqonayso insha Allah hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaa waaye waxaan ku horeynaa la habaar laguma doorsado ma fahanti haddii aadan adiga cunuga tinta ka hagaajinin ama aadan cunugii adiga aadan nadiifinin cid kuu nadiifinaysa malaha meeshaan cid walba teedaa haysato ma fahanti marka waxaa waaye inaad tartiibkaaga ah oo dhagdhag iska dhigtid oo ilmahaaga iyo gurigaaga dhexda u xiratid oo gurigaaga nadiifsatid oo waxaaga dhan qabsatid bilaa stress bilaa buuq ma fahanti markaa kaligaaga tahay maskaxdaada ka adeeganaysaa cid kuma adeegajinayso cidna maaragta kuma mashquulinayso laakiin markaa maaragta leesi iska dhigtid oo wixiina ay ku yaaleen hadhowta adiga lee maaragta aad dhib dareemaysid marka subaxdii galab dhan ma galaysid jikadaadii iyo gurigaagii waxaa dhan nadiifsanaysaa insha Allah jadwalkaas waa nila qaybsanayaa rootiinka habeenkii iyo kan subaxdiiba labadaba waa nila qaybsanaa insha Allah haddii ilaahay inoo suurto geliyo waxaa waaye idee dhoosa ma fahanteen marka waxaa waaye mobilkan kaa qaadanaa lee dhahan oo mobilkan kaa qaadanaa haddaan doojiiq ma dhehayso ciyaalka waxaa waaye jini mobil ay qabaan waa ka yaaba ilmaha qurbaha joogay ilaahay inoo dhaafee marka waxaa waaye hooyo adiga camal hadaa aniga camal tahay adigana istaag ilmahaaga hadda u istaag hadda ay fiirsanaysa aniga insha Allah adigana waa inaa hadda istaagtaa oo gabdhaha madaxa ka nadiifisaa ka shanlaysaa waxaa waaye iskuulaadka intaasoo ruuxa iskuugu imaanayso iskuulka injira ka dhalanayso wasaqa ka dhalanayso haddii aan cunugaaga aadhaadid subaxi asigoo galabgalay waan shanla yaraan kaaga jiijiidayaaye orod xijaabkaaga jug isku siiyay orod bax haddaa dhaadid dhibaato waaye ilmaha waa inaad tinta laftooda ka fiirisaa waa inaad tinta ka dhaqdaa waa inaad tinta ka nadiifisaa waa inaad tinta galabtii oo kale markaa jaanisishadoo kale nalka inta la shita tartiib tinta loo baarbaaraha la fiiriyaa ma fahanti inta ay macallimiinta ku dhiilaayeen cunugaaga injiraa laga helay injiraasaana korkiisa injir ku socotay inta lagu dhiilaa waa inaa adiga ka baarbaarataa oo adiga aa fiirsataa cunugaaga waayo intaasoo kumanaanoo caruura iskuugu imaanaysa iskuulka xitaa waa lagu sheegayaa markii iskuulka maaragtay waxaas ay ka jiraan marka cunugaaga waa inaa u feejignaataa mar walba way fiicantaa waaye xanaanooyinka iyo iskuulaadka aad iyo aad waxaa waaye nadaafad badan kama jirto dhulkaas unbaa la tirtirayaa laakiin hooyo walba inay cunugeeda maaragtay hagaagsato way fiicantahay marka hadeertaan tartiibkeena tinta ugu dabaneynaa markaan u dabo oon tinteeda aan u nadiifiyo hadda waxay igaga baahantaa male kaliya uun inaa maaragtay hadhowti aan cashadeeda iyo waxeeda waxay cuni laheyd aan u diyaariyo meeshay jiifa laheyd waxeeda dhan aan dhagdhag uga dhigo kadibna dharka ee subaxi insha Allah ee xanaanada ay ku aasan laheyd inaa waxeeda dhan aan iskugu dibraday ciyaalkoo dhan kuwa iskuul aadayo kuwa xanaano aadayo aan waxooda dhan aan u diyaariyo marka waxaa waaye alxamdulilah shukr rabbil caalamiin hooyo ayadaa waxeeda dhan toosisato hooyada gurigeeda nadaamsato inaa marka waa aragtay way fiican tahay inaa isku tashatid galab dheer inaa isku tashatid oo waxaaga dhan aa qabsatid
wuxuu ahaayey cid bili aadan maaragta aadan ku tashanin oo aadan bila maalayacni aadan waqti aadan isaga luminin marka marna caruurtaada aad la ciyaartid marna aad gurigaaga nadiifsatid marna aad quraankiina iska akhrisatid marna adiga aad jadwal samaysatid alxamdulilah shukr bil caalamiin wallahi cid aan ilaahay ahayn inaadan u baahnayn laakiin marka maalayacni maaragta aad naag isaga lumisid ama aad maaragta meel is istaagaaga u bato wallahi wax aad ka istifeegaysid malahan hadda kuu sheegaya adigadaan dhegeysanaya haddii aad tahay hooyooyinka jecel inay hasaabaan baxaan wareegaan maalayacni inay meelaha u istaagaan aad jeceshaha haddaba ka istaaga labta aniga ay daawanaysid ma fahantay wallaahi halcadiim nolosheediina aniga maanan bixin ma wareego meel ma aastaan ilmeygan waqti la qaataa haddaan maqanaha ayaga balamahooda iyo noloshoodii inaan usoo xaliyo iyo inaan ayaga dhex joogo bas haddaan baxo oo meel aastana meel aan wallaahi interest iyo dan aanan u aadin lagama yaabo inaan inta taga aan gambar inta fariisto aan dhaho heblaayo inakeenaan garbasaarka qaadanay aan baxnay wallaahi gurigaagay ka jeebantaha laakiin markaa cunugaaga u istaagtid meeshuu maraayo aa ogaatid gurigaaga nadaafadiisa aa ogaatid alaabtaada ka warhaysid wixii oo dhan ilmihii cuntadoodii ayagiyaaba mashquul ku ah mafahanta marna aad idinka maaragtay inta isku imaadiina ayaga waqti la qaadatid aa la sheekeysatid way fiican tahay haddii cunuga maaragtay iskuulka hadduu ka yimaado adigoo garbasaarkaaga garabka kuu saaran yahay oo rid kaaga hor yimaadaa tiraa hooyo labada ismarasolada oo isku dhufso insha allah meeshaanaan gaara oo soo noqonay haddaa dhahdid haddaa imaadidna adoo galabgalabla badarka inta karisid ilmihii nin walba aad sariirtiisa ku tuurtid goormee cunugaaga muxuu maanta la kulmay intuu tagay muxuu iskuulka soo qabtay alxamdulilah waa inaa ilmahaaga aa ka warheysaa waa inaa ilmaha la sheekeysataa maanta muxuu kala soo kulmay cunuga iskuulka cashir nuuca soo qaata maanta muxuu ahaayey waa inaa fiilmada wax loo yaqaano oo cunugaaga wuxuu maanta sameeyo kale hadduu wax xun sameeyo hadduu wax fiican sameeyo waa inaa fiirisaa masiijada laguu soo diro waxyaabaha lagaaga baahan yahay intaba waa inaa iska fiirisaa oo cunugaaga wax allaala wixii iskuulkaas lagaga baahan yahay wixii xanaanada lagaga baahan yahay inaa maaragtay xataa adiga warqad lagugu soo dhejiyey maahan waa inaa mar walba qaanadeeda fiirisaa markaa xanaanada tagtid maxaa ka dhiman hadday xafaayad ka dhimanta hadday wax kasta ka dhiman yihiin hooyoy 12 indhood inay yeelano ayaa noo fiican hooyada sideeda wallaahi halcadiin been idiima sheegaayo ma fiicno in adi lagu adeejiyo in adi is adeejisid oo hooyo cunugeeda u taagan nadaamsanayso gurigeedii ilmaheeda ka warheyso inaad noqoto way fiican tahay marba haddaadan ilmahaaga aadan ka dhex bixin runaantaadi ilmahaaga waqtiga isku helaysiin nolola isku helaysiin wax kasta isku helaysiin marna ayagaa la dheelaysaa marna ayagaa nadiifinaysaa maxaa ka haleysan nimcatu rabbi ilaahay ku siiye waaye ilaahay ha inoo dhaaf intaan haysana rabbi oolaad baariya ha ku irsaaqo ilaahay aan ugu baryayaan insha allah biidnillaahi kariim waxaa waaye alxamdulilah shukr bilcaalamiin aniga hooyaan ahay waa dhaqanahay alxamdulilah saa ujeediinba hadeertaan shaqadeenniyaan kusii jirnaa naagtaan waxaa waa marka kadib idey sheeke ahe keenaysaa laakiin moobeelkan kaa qaadanaa leedhahooyaa codka hadda gadaalan ka saarooyaa waayo caruura guriga joogto haddii kale waa la buuqbuuqaa waa la qayqaylinayaa ayadii midda kalaan rabay inaa madaxa aan kasa sameeyo marka waa kaasaa tartiib hadda madaxooda markaan u sameeyo shidada madax weyba kaa harta ma fahanta madaxa marka hoosha ay kugu badantaho kaleetooda hadhowti haddaadan hadda markii la qaqadeeya asiga aadan ka bilaabin maaragtay hadhowti markii gobolka kugu dhaco sidaa rabti uma sameysan kartid laakiin hadda marka ugu horeysa marka asi ka bilaawdid aa sugtid aa nadiifisid shidadiisa dhan way ku deysay inta kale basiid waayo guryaha shaladii hore iyo waxaasaa dhaqdhaqay waa haaqaaqalee kaliya wax kaloo hadda gooniyo u baahan yahay ma jirto waan ugogoglayaa cuntadoodii iyo wixii iskuulka ay u qaadan lahaayeen oo dharkii iyo wixii dhan baan diyaarinayaa marka wax walba iis waaye sida adig ka dhigatid ee noqonayaan hadda adiga aad iskaga dhigtid inay kugu adag yihiin maaragtay oo ku wareereysaa wallaahi ani waxaan aaminsanaa jiray caajiis wax ma qaban karo madaxa ay xanuunaayo maanta dhan markaa istaagsan tahay ee gurigaagu istaagsan tahay guriga dhan nadiif uu ku yahay adi xataa nafsadaada waa u bagye ilmahaaga nadiif ay ku yihiin wax walwala ma qabtid ilmahaaga may wasaqaayeen ama jirkaaga jirto ama xaalsaankaaya ma jirto tartiibkaaga labadooda cunto nin walbo kastiisa u guraysa waxaa leedahay macaan dhaqsi cid kaa horeysa malahan ee cuntadan iyo cun subaxdigiina quraacdooda siisanaysaa waa u labisanaysaa qaboobaa jiro ciyaalka hooyo koofi fiican ma qaadatay waa qaata lee lagu dhahayaa subaxdigii ilmaha waa inaad gacantiina ugu labistiin ma ahan adigasha inaa dhahda hadduu ugu bato oo dharka dhexmeedka caadigaa gashto waxyaabaha yaryarka waa inaa idinka maaragta aa ka wixaysiin waa kaasaa ugu dambeyn tintisaanay noogu soo baxday waa ujeediinsa saa ugu dabay 3 balee uga dhigabo xabadan iyo labadaas gadaale bisaa uga dhiga ayadoo dhanba haddana waxaan sameyneynaa insha allah maa-idaan u sameyneynaa ayadane waa ujeediin maa-ido hadeertaan waxaan rabaa ayadana inaan dhagdhag uga soo siiyo ma rabi inaan fiidiyogooda ku dheereeyo waayo siinib maaragta orado fiidiyooga maanan ku furin oo maanan boobsiinin kaamirada marka maa-ida waxaa waaye ayada tinteeda aad iyo aad ay u badan tahay fiidiyoogaana ku dheeraanayo marka saasaan usoo dadabaaya ayadana tartiibkeeda
waxaa waaye soo dhaqay waa soo nadiifiyey waa usoo qubeeyey ayagoo dhan nadiifaan kasoo dhigay marka tinteeda sasa ugu soo tidcaya marka cunugaaga wallaahi bilaahi aad ka warheysid aa ku dhahay oo noloshiisa iyo nadaafadiisa aad ka warheysid qalbiga dhan wuu kuu degan yahay adiga dhan waxaad dareemeysaa inaa hooyo maaragtay kaala aragay inaad tahay marka saasaan usoo dabaaya maada tinteeda wax saas usii weyn ma ahan waa ujeediin hadba qaabka aan dubooyo halkaas wixii oo dhan saasaan ugu soo duuduubay jileec saliidaas aan ii sheegayaan aan xawaayada aan u mariya saliidaasna haddaad danaynaysiin dukaamaka carabka laga helaa tinta dhan kaala aragay ka dhigaysaa markaa shaambo ugu soo dhaqdo doobiye shaambo aad dhag ugu siiso ugu dambeyntii aan ku dhahay kaala aragay noqonaysaa marka halkaas fadlan haddaa ku cusub tihiin janalka subscribe la saaro rootiinkeyga subaxdii habeenkina waa idin la qaybsanaya insha allah bye bye